kusoo dhawaada qaybta saddexaad ee cutubka saddexaad qaybta waxaa ku arkaynaa techniques of definitions qaababka wax loo qeexo marka laba qayb baan arki doonaa oo ah extensional definitional techniques iyo intentional definitional techniques midkan koobaad haddaba the extensional ama denotative definitional techniques waxaa la yidhi an extensional definition qeexitaanka ereyga la qeexo isagoo la adeegsanaya extension waxaa soo harin waxaa weeyaan waa midka that assigns midka baa la yidhi ku sunta ama siiya meaning macno to a term tibix by indicating isagoo muujinaya ama tusinaya the members xubnaha of the class ee classkaas galay ama dabaqada that classkaasoo the definition of units la qeexaha hoos imanaya there are waxaa jira haddaba at least ugu yaraan 3 ways 3 qaab of indicating oo lagu muujinayo ama lagu tusiyo the members of a class saddexdaa qaabada waxay kala yihiin pointing to them in la tilmaamo oo loo yaqaano demonstrative ama intensive definitions loo yaqaano naming them individually in keli loo magacaabo oo la yidhahdo enumerative definitions and naming them in groups in koox loo magacaabo oo la yidhahdo definitions by subclass marka mid baan arkaynaa saddexdan ka koobaad demonstrative ama intensive definitions demonstrative definitions are probably the most primitive form of definition waxaa la yidhi waa noocii ugu horreeyay definition weeyaan all one need know to understand such a definition is the meaning of point waxa kaliya waxa uu u baahan yahay baa ruux isoo qeexaha noocan u baahdo u ogaado waxa weeyaan inuu garanayo macnaha tilmaanta such definitions qeexaha noocani may be either partial or complete waxa laga yaabaa inay noqdaan kuwa dhammaystiran ama kuwa qayba bada depending on iyadoo ku xidhan whether all or only some of the members of the class denoted by the definition are pointed to iyadoo ku xidhan baa in dhammaan xubnihii la qeexa hoos imanayo dhan in la tilmaamayo in qayb kaliya la tilmaamayo iyadoo ku xidhan haddii qayb kaliya la tilmaamay waa partial haddii kalena waa complete tusaale here are some examples halkan waxaa la yidhahdaa tusaalaan ereyga chair iyadoo la isticmaalayo muxuu ahay extensional definition waliba demonstrative iyadoo la tilmaan la isticmaalayo la qeexay waxaa la yidhi means waxaa weeyaan this and this kan iyo kan as you point to a member of to a number of chairs adoo tilmaamaya baa la tiro kuraas oo agtaa taala kan iyo kan haddaad one after another midba mid kale ka dambeeya adoo tilmaamaya waxay ka dhigan tahay haddaad kuraasta meesha taalloo dhan aad tilmaanto waa tilmaantaas waxaa weeyaan waa complete haddii kalood qayb tilmaantana waa partial sidoo kale waxaa leedahay Washington Monument taallada Washington means waxaa weeyaan that as you point it adoo tilmaamaya leedahay taallada Washington waxaa la yidhahdaa taa ruuxu tilmaamaysaa nooca labaad waxaa la yidhahdaa enumerative definitions assign a meaning waxay siiyaan baa la yidhi macnaha ereyga macnaha erey ku suntaan to a term tibix by naming the members iyagoo magacaabaya baa la yidhi xubnaha of the class ee uu classku iska leeyahay of the class the term denotes classka baa la yidhi tibixda hoos imanaya memberskeeda iyagoo magacaabaya ayay ereyga macno siiyaan like sida demonstrative kii aniga soo aragnay oo kale they may also be either partial or complete waxaa laga yaabaa mid dhammaystiran ama mid aan dhammaystiran ay noqdaan baa laga yaabaa tusaale ahaan ereyga actor ama jilaa haddii iyadoo la isticmaalayo enumerative definition waxay ka dhiganta waa inaad magacowdo memberskii ereyga actor hoos imanayo dhan wixii classka actor u hoos imanay waxaa la yidhahdaa a person such as waxaa la yidhahdaa actor waxaa la yidhahdaa shakhsiga sida Ababe Samson Tedessa dadkan magacyada la tiriyay marka actorska oo dhan haddaad wada tirin karto waa complete haddaad qayb ka mid ah tirisana waa waxa weeyaan waa partial waxaa la yidhi complete enumerative definitions qeexda enumerative ee dhammayska tiran are usually more satisfying than partial ones ayaa ka fiican baa la yidhi ama ka fiican in la adeegsado midda partialka because sababtoo ah they identify the definition with great assurance waxaa la yidhi waxay noo sheegaan definition la qeexo wuxuu yahay iyo hubanti aad u sarreysa ku dhahan tahay however relatively few classes can be completely enumerated laakiin classes yar kaliya unbaa si buuxda loo dhammaystiri karaa oo actor haddii la yidhahdo waxa jilaa dunida jiro oo dhan ma tirin karaysa oo complete ma samayn kartid enumerative definition nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa definitions by subclass in koox loo qeexo definition by subclass assigns a meaning wuxuu siiyaa baa la yidhi macno erey macnaha wuxuu siiyaa ereyga ama ereyga macnaha ayuu sheegaa by naming subclasses of the class isagoo sheegaya baa la qayb hoosaadiyo hoos tagaya qaybta denoted by the term tibixda hoos imanaya macnaha tibixda hoos imanaya ayuu qayb hoosaadiyo usii qaybay such a definition qeexdani baa la yidhi to sidoo kale baa may be either partial or complete mid dhammaystiran ama mid dhammaystiran iyaduna ay noqoto iyadoo ku xidhan subclassesko dhan in la magacaabay dhammaantood
iyo in qayb ka mid ah la magacaabo iyadoo ku xiran iyadoo complete iyo partial labada noqon kartaa tusaalayaashan soo socda tusaalana fiirin xalliga koobaad waa partial ka labaadna waa complete tusaalaan ereyga tree geed means waxaa la yidhahdaa oak pine elm spruce maple and the like waa maxay waa kooxo geedo eega oak tusaalaana waa kale ama pine waa classka tree la yidhaahdo sub class ka mid ah oo qayb hoosaad ka mid ah geedaha la isku dhahaa magaca koox la isku dhahaa marka haddaad kan koobaad baa la yidhi waa maxay waa partial oo geedihii sub classka tree hoos sameynaya oo dhan lama wada magacaabo kanna waa complete fictional work waxaa la yidhahdaa waa tusaalaan poem waxaa la yidhahdaa gobayga iyo ciyaarta iyo qisooyinka ama sheekooyinka gaaban waxyaabahaas la yidhahdaa marka sidii kuwii hore oo kale isaguna partial iyo complete ba uu noqon karaa the intentional connotative definitional techniques waxaa la yidhahdaa farsamooyinka qeexitaan ee iyadoo intentionka ereyga la adeegsanayo intentionna wuxuu yahay isagana waa soo aragnay an intentional definition waxa weeye waa mid kabaa la yidhi assigns a meaning is the one that assigns a meaning waa mid kabaa la yidhi macna siiya the word erey by indicating isagoo ina tusinaya the qualities or attributes waxaa la yidhi tayooyinka ama sidoo kale tilmaamaha ama sifooyinka that the word connotes ee ereygu uu leeyahay there are waxaa jira at least 4 strategies waxaa jira 4 qaab ama 4 farsamo oo la adeegsan karo si loo qeexo definitionka intentionka oo iska loo sheego that may be used to indicate the attributes qualities that a word connotes kuwaasoo la adeegsan kara baa la yidhi in intentional definitionka ereyga lagu sheego waxay kala yihiin dawaan saddexdani afartani synonymous definitions etymological definitions operational definitions by genus and difference afarta qabood mid kasta keligii baan arki doonaa mid koobaad hadda waxaa la yidhaha synonymous definition is one waxaa weeye waa midka in which case the definitions qeexayaashu is uu yahay ama waxa lagu qeexaya ereyga waxa lagu qeexaya is uu yahay single word erey keligii ah that connotes the same attribute as the definient kaasoo baa la tilmaan la mida leh sida la qeexa waxay ka dhiganta the definient is waxa weeyaan a synonym of the word being defined waxaa la yidhi la qeexo waa erey macnahaan la mida ereyga la qeexaya tusaale ahaan ereyga physician baa waxaa lagu qeexay doctor iyo physician waa isku macno observe arkid ama eegid means see marka qeexdaha noocan la yidhaha synonymous definition bale etymological definition nooca labaad la yidhaha waxaa etymological definition assign wuxuu siyaaba le meaning macnaha to a word erey by disclosing isagoo soo furaya ama banaanka u keenaya the word's ancestry waxaa la asalka ereyga in both its own language and other languages asalka oo ereygu ku leeyahay luqadda uu ku jira iyo luqadaha kaleba isagoo soo daafuray tusaale ahaan ereyga Englishka baa license waxaa laga soo dhanriyay from the Latin verb falka Latin ereyga verbka ee Latinka ee la yiraahdo listed kaasoo macnihiisu yahay to be permitted in lagu ogolaado saa darteed etymological definitions waxay leedahay special importance muhiimad gaar ah for at least 2 reasons labo sababood ugu yaraan laba sababood ayuu leeyihiin baa muhiimad gaar sababta koobaad waxa weeyaan etymological definition ereygan qeexdan baa la yiraahdaa asalka ereyga lagu qeexayay waxaa la yiri often conveys the word's root meaning badanaa waxay nasiisaa bale ama ay gudbisaa macnaha asalka ee ereygu iska leeyahay ama seminal meanings macnaha muxuu ahaaya asaaska ah ee ereyga from which kaas all other associated meanings and derived macnayaasha kale ereyga la xiriiriya macnaha ama ereyga loo adeegsado dhan laga soo dhandhariyo sababta labaad ee etymological definitionku ay muhiim yihiin waxa weeyaan the second reason sababta labaad ee etymological definitions saxaaf ay leeyihiin special muhiimad gaar ah u yeesheen waxa weeyaan that if one is familiar with the etymology of one word waxa la yiri hadduu ruux og yahay baa asalka ereyga one often has access to the meaning of an entire constellation of related words ruuxu wuxuu heli karaa baa macnaha ereyo dhan oo la isku xiray dad ereyadan asalkooda ka yimaadeen macnahooda garanaysaa labada muhiimood bay leeyihiin saddex operational definitions ku baa iyagoo assign a meaning waxay siiyaan baa macno to a word erey by specifying iyagoo cadeynaya certain experimental procedures hanaano tijaabo oo gaar that determine kuwaas hogaamiya whether or not the word applies to a certain thing kuwaas hogaaminaya baa ereygan in shay gaar ama xaalad gaar uu sax ku yahay in kale tusaale one substance is harder than another waxaa la yidhaha walaxda kale way ka adag tahay if and only if haddii oo kale one scratches midi ay xoqda baa la yidhi the other midda kale when the two are rubbed marka labadan walxood la isku dulqaajay saa la isku xoqo hadday midda kale xoqdo tusaale ahaan haddaad ku xoqdo geed iyo bir dee birta ayaa geedka xoqaysa oo geedka marka dambe waxaa laga yaabaa inuu dulasho saa darteed
waxaan odhanaynaa birta ayaa ka adag geedka su'aalahan sidoo kale a solution is an acid waxaa la yidhaha milanku waa acid if and only haddii kale baa la litmus paper warqadan litmuska la yidhahdo ee lagu tijaabiyo in waxan acid iyo base lagu kala garto haddii baa la warqadaasi returns red ay isu bedesho baa la yidhi red ay casiin isu bedesho casaan noqoto when dipped into it marka milanka lama khursiyo la dhex geliyo marka each of these definitions baa mid kasto ka mid ah qeexaani prescribes waxa uu cadaynaysaa an operation to be performed shaqada in la qabto si loo ogaado labadan midkeeba acid milankan ma acid mise base waxaa loo baahan yahay shaqo horta in la qabto oo litmuskii la dhex geliyo sidoo kale laba walxood midkoodii adag si loo ogaado operationka ama shaqada ah in la isku xoqo ayaa loo baahay saa darteed baa loo leeyahay operational definition midka afraad waxaa la yidhahdaa definition is by genus and a difference definitions by genus and difference science wuxuu ku suntaa baa leeyahay meaning macno to a term tibix by identifying isagoo cad soo soocaya ama sheegaya a genus term tibix baa leeyahay genus waan arki doonaa genus waxay and one or more difference words iyo hal ama in ka badan oo erayo ah kuwii kala soocaya genuska specieskiisa that when combined kuwaasoo markii la isku xidho baa leeyahay convey gudbinaya ama bixinaya ama sheegaya the meaning of the term being defined macnaha tibixda la qeexayo it is more generally applicable and achieves more adequate results than any other kinds of intentional definitions waxaa la yidhi waa aad bay uga habboon tahay maxaa sidoo kale aadna waa loo adeegsadaa noocyada kale ee muxuu ahaaye definitionada way ka adeegsi badan tahay wayna ka habboon tahay about to explain how it works si aan u sharxin baa qaabka definitionka noocan u shaqeeya we must first explain the meaning of the terms genus species and specific difference saddexdaa tibxood waxay yihiin horta aan sheegno waxaa la logica markii la joogo genus and species labadan erey genus iyo species half waxay leeyihiin a somewhat different meaning macna si uun uga duwan baa macna ka duwan then they have in biology midkii ay biology ku dhaxlayeen saalan biology waxa la isticmaalay qayb kamid ah xayawaanka genus la isku dhaho gaar la yaqaano speciesna qayb hoosaad kuwa ka siimada laakiin logica dhexdiisa waxa la yiri genus simple means genuska waxa la yiraahdaa macnaheedu waxa weeyaan a relatively larger class kalaaska kolba qaybta badan qaybta badan baa kolba la yiraahdaa species waxa la yiraahdaa a relatively smaller subclass labadan shay marka la isbarbar dhigayo kolba mid ka yar ayaa la yiraahdaa tusaale ahaan we may speak of the genus animal waxa laga yaabaa inaan ka hadalno baa genuska xayawaan another species mammal iyo xayawaanka qaybta naasle la yiraahdo yaa noqon oo markii xayawaan animal iyo mammal marka la isbarbar dhigo mid ka weyn baa genus noqonay haddii mammal iyo species la isbarbar dhigana waxa laga yaabaa the genus mammal another species feline the genus marka logica markii la jooga labadan ay wax joogto la yaqaan ma labadan shay ee haysato kolba ka badan baa la yiraahdaa genus ka yarna waxa la yiraahdaa waxa la dhahaa muxuu ahaa class soo waxa la yiraahdaa xayawaanka feline specieskiisu tiger buu noqon ama haddaan tigerka genus ka dhigno qayb kamid ah kasoo shabeelka oo salaam bengal tiger yaa specieska noqonay labada hadda waa aragnay specific difference iyagu muxuu yahay ama difference for short iyo si gaaban difference la iska dhaho ama specific difference ama marka qaar kood soo gaabiyo difference u leeyahay is the attribute or attributes waxa la yiraahdaa waa tilmaanta ama tilmaamaha that distinguish ama sifooyinka ama sifada that distinguish the various species within a genus specieska uu iska leeyahay genus ilan genuska qayb subclasses buu yeelan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin mid kasta waxa ay gaar ku tahay kuwa kale lagaga soocayo ayaa la yiraahdaa maxay specific difference haddaba let us construct a definition by genus and a difference for the word eyes waxa la yiraahdaa qeex ku salaysan genus iyo difference ku salaysan aan u dhisno baa la yiraahdaa ereyga eyes ama inagoo genus iyo difference iyo species isticmaalayna bal ereyga eyes aan qeexno the first step talaabada koowaad baa la yiraahdaa to identify waa inaad soo socdo genus of which eyes is the species genus ama qayb sare oo eyes ku qayb hoosaad ka yahay waa inaad marka hore sheegto the required genus is water genuska aan u baahanay waa biyo oo biyaha ayaa genus noqon qayb hoosaad ka siimidayo marka baraf noqon next marka labaad waxa xiga baa la yiraahdaa we must identify a specific difference waa inaanu soo socno ama sheegno farqi muxuu ahay gaar ah oo ay la gaar leeyihiin ama astaan gaar ah that makes taasoo ka dhigta baa la ice barafka a special form of water nooc gaar oo biyaha nooc gaar oo biyaha waxa ka dhigay ee uu kaga duwan yahay biyaha noocyadiisa kale waa inaan soo sheegno the required differences waxa difference-gaan u baahanayn waa frozen waa biyo qaboobay ama fadhiistay the complete definition may not be written out marka qeex dhameystiran baan hadda qori karnaa oo salaam waxaad leedahay species kii waa halkaas ku qori difference-ga genus marka ice waxaad leedahay ice means frozen water ice barafka waxaa la yiraahdaa biyuhu markay fadhiistaan marka genuskaaga class-ka weyn ee la hoos imanaya waa biyo ice-kiina waa species-ki specific difference-ga uu gaarka leeyahay ice-ka biyaha kale kaga duwan yahay waa frozen
marka qaabka noocan ayuu socdaan waa inaad marka hore genuskii aad identify garaysaa ama aad soo socdaa kadibna specieskaas wuxuu genuska specieskiisa kale kaga duwan yahay waana sheegay markaasaad dhisi kartaa maxay qeex ku salaysan genus and difference criteria for lexical definitions qaybtan waxaan ku arki doonaa shuruudaha uu iska leeyahay definitionadii faraha badnaa soo aragnay mid ka mid ah oo ka ugu muhiimsan inta badan la adeegsado la yidhahdo lexical definitions qeexaha lexical definitionka la yidhahdo waxay leeyihiin shuruudo haddaba waxaan arkaynaa 8 xeer rule 1 haddaba xeerka koowaad wuxuu leeyahay a lexical definition qeexda lexicalka should conform to the standards of proper grammar waxaa la waa inay waafaqdo muxuu ahaay xeerasha saxda ee grammarka a definition waxaa la yidhi qeexda like any other form of expression si odhahyada kaleba should be grammatically correct waa inay grammar ahaan sax noqotaa ma naxwi ahaan waa inay sax tahay for example tusaalaan the following definition qeexaan soo socday are grammatically incorrect naxwi ahaan waa khalad way khaldan yihiin tusaalaan waxaa la rabaa inuu ruux dhaho fasaxu waa marka iskuulkaada ama fas iskuul jirin ama aan shaqo jirin marka wuxuu leeyahay vacation is when you don't have to go to work or school furious means if you are angry at wuxuu leeyahay cala waxaa la yidhahdaa buu leeyahay ama markaad ruux u cadhaysan tahay baa ereyga furious macnihiisu weeyaan marka labadan odha grammatically ama muxuu ahaay naxwi ahaan way khaldan yihiin here are the grammatical correct definitions halkan waxaa yaala baa iyagii oo grammar ahaan saxan tusaalaan vacation means macnaheedu waxaa la yidhaha a period waa waqtiga ama waa muddada during which activity is suspended xilligaas oo baali ayna howlaha laga joojiyo ama howlo ayna ka jirin shaqada iyo iskuulkaba furious means a condition of being angry xaaladda oo ruux markuu ku cadhaysan yahay ayaa la yidhahdaa furious marka lexical definitionku rule 1 wuxuu leeyahay waa inuu grammar ahaan sax yahay rule 2 xeerka labaadna wuxuu sheegaya lexical definition lexicalka should convey the essential meaning of the word being defined waa inuu gudbinayo baali macnihii laga maarmaanka ah ereyga la qeexayo a definition cannot be helpful qeexda baa la yidhi ma noqonayso mid na caawinaya if it fails to convey the essential meaning of the definendum hadday baa la yidhi ay ku fashilanto inay gudbiso macnihii laga maarmaanka ah ee la qeexaa any definition qeex kastoo that defines taasoo u qeexda baa la yidhi the word human ereyga human as inuu yahay oo bini aadan baa qeex lagu yidhi soo abaa waxaad ku qeexday featherless biped laba lugoodle aan beed lahayn for instance tusaalaan cannot be helpful ma noqonayso baa mid ina caawinaya since it fails to convey the essential meaning of human maadaamay ku fashilantay baa macnihii laga maarmaanka ah ereyga human ahaa as the word is used in ordinary English sida ereyga luqadda caadiga loo isticmaalo it says nothing about the important attributes waxaa la yidhi waxba kama sheegayso astaamaha ama sifooyinka muhiimka that distinguish kuwaasoo ka sooca humans from other animals bini aadam ka sooca xayawaanka oo waxyaabihii xayawaanka kale kaga duwanaayay qeexdan kuma caddo oo haddii si saxa loo eego bini aadamku laba lugoodna uu leeyahay baadna male laakiin macnihii laga maarmaanka ama gudbinayso kuwaasoo kale abaa layidhi the capacity to reason awoodda uu leeyahay bini aadamku inuu wax ku sababayo and to use language on a sophisticated level iyo inuu luuqadda u adeegsado baa layidhaha heer sare ah sidaa daraaddeed a more adequate definition would be qeex aad uga habboon waxay noqon sida may noqon human means ereyga human in lagu qeexo the animal xayawaanka that has kaasoo leh the capacity to reason awood u leh baa layidhi inuu wax sababay and to speak iyo sidoo kale inuu hadlo lexical definition saa darteed waa inuu macnihii dhabtahaa ama macnihii laga maarmaanka ah ereyga waa inuu gudbinayo yuu leeyahay xeerka labaad xeerka saddexaad wuxuu leeyahay a lexical definition should be neither too broad nor too narrow qeexdan lexicalki waa inayna noqonin mid aad u ballaaran iyo mid aad ciriiriana waa inay noqon oo macnaheeda waa inayna mid gudo weyn noqonin gudo yarna waa inay noqono qeexda labada midna waa inay noqon if a definition is too broad haddii qeexda baa mid aad u ballaaran noqoto the definitions include too much erayadan qeexayaasha wax badan baa ku jira ama wax badan bay soo hoosgeli if it is too narrow haddii ciriiri noqoto oo mid kooban noqotona the definition must include too little tusaale ahaan haddii baa leeyahay ereyga bird shimbir were defined loo qeexo as any warm-blooded animal xayawaan kasta oo dhiig diiran having wings oo leh baadad haddii aan saan ku qeexno the definition would be too broad waxaa la yidhi qeexdan waxay noqon mid aad u ballaaran because sababta it would include bats qeexdan waxaa soo hoosgeli oo shimbir markaa noqon bats fiidmeerta and bats are not birds fiidmeertuna shimbiraha laguma tiriyo haddaan laakiin saa ku qeexno dee fiidmeertu warm-blooded way tahay sidoo kale baadadna way leedahay laakiin shimbir maaha qeexdan markaa waa broad if on the other hand dhanka kale baa layidhi haddii shimbirtii lagu qeexa baa layidhi as any warm-blooded feathered and that can fly xayawaan kasta oo dhiig diiran
sidoo kale baadad leh duuli karaan haddaan ku qeexno the definition would be too narrow qeexda waxaa la yidhi waxay noqon mid narrow ah oo qayb ka mid a xayawaanka shimbiraha ka bixi meesha oo qeexda soo gelayn because sababta it would exclude ostriches waxay ka saari baa meesha gorayada which cannot fly taasoon duuli karin ilaan shimbir waxaan waa wax kasoo duuli karo baad leh oo warm bladed marka qeexdan dambe waa maxay waa narrow taa horena waa maxay waa too broad saa darteed xeerka saddexaad wuxuu leeyahay qeexda waa inayna broad too broadna waa inay noqonin too narrow sidoo kale waa inayna noqonin xeerka afraad wuxuu leeyahay lexical definition should avoid circularity qeexdan lexicalka waa inay ka fogaato baa inay isku noqnoqoto sometimes mararka qaarkood the problem of circularity qeexda dhibaatada ah baa isku noqnoqoshadu appears in connection with bias of definition inta badan waxay la xidhaa baa mararka qaarkood lamaanayaal qeexa the following bias is circular saaran lamaanayaashan waa isku noqonayaan baa erga science waxaa lagu qeexay the activity engaged in by scientists hawsha ay saynisyahanadu ku howlan yihiin baa science la yidhahdaa ku qeex marka waa isku noqnoqon scientistin waxaa la yidhi means anyone who engages in science saynisyahan waxaa la yidhahdaa ruux kasta oo ku howlan science waa isku noqnoqonaya waa circularity waa inuu ka fogaado tii laaween isku noqonaysa ayaga qeexdan rule 5 ama xeerka shanaad wuxuu leeyahay lexical definition should not be negative waa inuuna noqonin baa la yidhi mid negative oo taban when it can be affirmative iyadoo orax caadi noqon karto of the following two definitions by labadan definition ee soo socda the first is affirmative the second is negative ka hore baa la yidhi waa orax iska caadi ka dambana waa negative oo si taban baa wax loo qeexay tusaalaan ereyga concord ayaa waxaa la yidhi means macnaheedu waxaa weyn harmony muwaafaq markay muwaafaq yaa la yidhahdaa concord means tanna waa isla sidii waa ereygii baa la qeexay laakiin qaab negative aa loo qeexay waxaa la yidhi concord means the absence of discord khilaaf la-aan maqnaanshaha khilaaf markuuna khilaaf jirin baa la yidhaha concord tanna wuxuu yidhi harmony marka ereyga haddii loo qeexi karo qaab affirmative ah waa in loo qeexaa laakiin some words ereyada qaarkood however are instinctively negative ereyada qaarkood baa la yidhaha are instinctively negative si dabiici ayba qaab negative u yeelaan for them ereyada noocaas haddaba a negative definition is quite appropriate qeex negative ayaa habboon tusaalahaan ereyadan ereyga waxaa la yidhi bold means waxay ka dhigan tahay bidaar macnaheed waxay ka dhigan tahay lacking aan tima lahayn darkness madow waxaa la means the absence of light marka uuna ilis jirin ama iftiin jirin baa darkness la yidhaha mugdi la madow marka definitionku haddii uu noqon karo affirmative laakiin ereyada aan noqon karin sida kuwan oo kale negative definition in la isticmaala appropriate laakiin ereygu hadduu labadaba qaadan karo inaad si affirmative u qeexdaa ka habboon haddii kale laakiin oo si dabiici ahana sida ereyadan oo kale uu si negative u yeelo waxaa la yidhi negative definitionka ayaa ka habboon kan kale inaad adeegsato ruleka lixaad wuxuu leeyahay rule 6 a lexical definition ama xeerka lixaad wuxuu leeyahay lexical definition should avoid waa inuu ka fogaado figurative obscure vague or ambiguous language waxaa la yidhi luqad wax sawiraysa ama wax tusaaleynaysa oo dahsoon oo vague oo aan macnaheedu kala cadeyn macnaheedu uuna kala cadeyn oo wax ku yar jiro or ama ambiguous language ambiguity iyo vagueness waan soo aragnay a definition is figurative waxaa la yidhahdaa qeexda waxaa laga yidhahdaa waa figurative waxbay sawiraysaa ama ay tusaaleynaysaa if haddii baa la yidhi involves metaphors haddii luqadda qeexdaas ku lug yeelato metaphors tusaaleyn or tends to buy a picture instead of exposing the essential meaning of the term ama ay muuqato baa mid sawir muujinaysa ama wax ku matalaysa meesha ay macnihii dhabtaa soo bandhigi lahayd tusaale ahaan ereyga camel baa waxaa loo qeexay a sheep of the desert markabka saxaraha tusaalehaan ereyga macnihiisii dhabtaha ama laga barmaanka lama dhigin laakiin sawir baa laga bixiyey qaab waxbaa la sawiray markabka saxaraha baa a definitionada noocaasa la yidhahdaa maxay waa figurative a definition is obscure waxaa la yidhi qeexdu way dahsoon tahay if it is meaning is hidden hadduu macnaheedu qarsoon yahay as a result of defective or inappropriate language luqad baa la yidhi muxuu ahaaye cillad ku jirta ama khaldan ama luqad aan ku habboonayn haddii lagu qeexo one source of obscurity is overly technical knowledge inta u badan meelaha oo obscurity ama dahsoonaanta uu ka dhaco qeexahaas waxaa la yidhahdaa marka la adeegsado ama intooda badan waxaa technical knowledge and technical language luqad farsamo haddii ereygon erey non technical haddii luqad farsamo lagu qeexo wuxuu noqonayaa obscure macnihiisii uu noqon tusaale ahaan waxaa la yidhi labadan qeexood bal sarbardhig tusaalaan bani means waxaa la yidhi a mammalian bani waxaa la yidhahdaa waa xayawaan naslaya of the family Leporidae xayawaankan Leporidae la yidhahdo qaybta familiga kasii tirta
weliba qayb hoosaadka looga marfooga ka sii tirsan whose young kuwaasoo baa layidhi ciyaalkiisu are born ay ku dhashaan farless and blind iyagoo aan dhogor lahayn oo dhala qeexda labaadna waxay leedahay isla ereygii bay qeexaysaa waxaa layidhi bani means a rabbit bani waxaa la yidhahdaa rabbit bakeyle marka ereyga bani waa maxay qeexdan kore waa obscure way dahsoon tahay waxaa la isticmaalay maxay technical language isagoona ereygu non technical term iyo technical language la isticmaalay saa darteed qeexaha noocaas waxaa la yidhahdaa obscure saa darteed xeerkan lixaad wuxuu leeyahay qeexdu waa inay ka fogaataa maxay figurative obscure vague iyo ambiguous language waa inay ka fogaataa ambiguity iyo vagueness iyaga hore baan soo arag rule 7 xeerka toddobaad wuxuu leeyahay lexical definition should avoid effective terminology wuxuu leeyahay waa inuu ka fogaadaa terminology ama tibixda erey saameyn leh waa inuu ka fogaado effective terminology is any kind of word waa nooc kastoo erey bale of any kind of word usage waa nooc kastoo adeegsi erey that plays upon the emotions of the reader or listener taasoo baa ku ciyaara dareenka muxuu ahaayey dhegeystaha ama akhristaha ay ka dhigan tahay saameyn ku yeelan kara oo bedeli kara it includes waxaa ka mid ah bale sarcastic and facetious language and any other kind of language that's liable to influence attitudes luqadaha baa jees-jeeska iyo jilaaca ku jiro iyo nooc kasta oo luqada oo saameyn ku yeelan karta muxuu ahaay mowqifka ruuxa ama aragtida ruuxa tusaale ereyga communism ayaa waxaa loo qeexay means the brilliant invention of Karl Marx and other foolish political visionaries in which the nation will is supposed to be held in common by the people. Communism waxaa la yidhi shuuci ama shuuciyaddu aragtidan waxaa la yidhahdaa macnaheedu waxaa lagu qeexay inay tahay waxaa la yidhi waa soo saari ama waa aragtidii uu soo saaray cajiibka ahayd ninka la yidhahdo Karl Marx iyo sidoo kale aragtiyanadii kale siyaasadeed ee doqomada ahaa kuwaasoo aragtidaasoo leh baa la yidhi ama sheegaysa in hantida waddanka si wadara loo wada leeyahay ayaa loo qeexay marka qeexdana waa maxay waxay isticmaalaysaa effective terminology marka hadduu lexical definition waa inuuna adeegsanin terminology emotionka ama tibix ama erey saameyn kara muxuu ahaay dareenka shakhsiga ruleka 8aad oo ah kii u dambeeyay wuxuu leeyahay lexical definition qeexda lexicalka should indicate waa inay notiso the context to which the definition pertains xaaladda ay qeexayaashan iska leeyihiin erey baa waxaa laga yaabaa inuu intaasoo macno leeyahay qeexayaashan ereyadan ka dambeeyay qeexayay xaaladda ay qeexayaan ama shayga marka xilliga muxuu ahaay loo adeegsan karo mid ka mid ah dhinacyadii macnayaashii faraha badnaa ee ereyga loo adeegsanayay midka ay ku saabsan yihiin waa inay definitionkan waa inuu inoo muujinayo this rule applies xeerkani wuxuu leeyahay baa la yidhaha muxuu to any definition ama waxaa loo adeegsan karaa ama sax ku yahay baa la qeex kasta in which kaasoo the context of the definitions kaasoo baa la yidhi xaaladda contextiga ama dhinaca ay ku saabsan yihiin qeexayaashu is important ay muhiim u tahay to the meaning macnaha of the definition la qeexaa tusaale ereygan tusaalaan strike ayaa 3 qaab loo qeexaya marka definitionskan erey kasta ka dambeeya waa inay contextiga ama xaalad markaa la joogay loo adeegsanayo waa inay sheegayaan ereyga strike baa la means macnaheedu waxaa weyn in baseball kubaddan baseballka la yidhaahdo markii la joogay strike waxaa loo yaqaana a pitch at which a batter swings and misses waxaa la yidhi tuuritaanka kubadda marka lasoo tuuray ee ruuxan ciyaarayay baa la yidhi uu iskala bixiyo ama uu dhaqaaq sameeyo una la waayo saalaan kubaddan marka ruuxa lagu soo tuuro wax yaroo gacanta lagu celiya hadduu la waayo ay dhaafto waxaasa la yidhahdaa maxay strike baa la yidhahdaa markii la joogo kubadda la yidhahdo bowling ama ciyaartan la yidhahdo bowlingina waa ciyaar kubad saa inta loo wareejiyo kadibna waxyaaba yar loogu qotamiyo yaad kubadda ku kala daadanaysa ku tuuraysaa bowlingiga hadda markii la joogana waxaa la yidhahdaa act of knocking down all the pins with the first ball of a frame kubadda u horreysay tuurta haddaad shayaashii saa lagu qotamiyey kubadda ku dhacaysa haddaad hal mar ku wada daadiso kubadda u horreysa aad ku wada kala daadiso taabaa waxaasaa la yidhahdaa strike markii bowlingii la joogo sidoo kale kalluumaysiga in fishing strike waxaa loo yaqaanaa baa layidhi a bull on a line made by a fish in taking the bite waxaa layidhi soo jiiditaanka xadhigan soolaan ama xadhigan lagu soo qabsanayo dabinka afka loogu xidhayo si kalluunka loo soo qabso soo jiiditaanka xadhiga lasoo jiidayo marka uu kalluunku isku dayo in cuntadan yar ee dabinka loo saaray markuu qabsays dhaho si kalluunka loo qabto soo jiiditaanka lasoo jiidayo ayaa la yidhahdaa maxay strike la yidhahdaa marka saddexdan macno hal erey baa iskale marka definitionku aad isticmaalaysaa waa inuu contextiga laga hadlay waa inuu muujinayo
it is not always necessary badanaa baa layidhi laga maarmaan maaha to make inaad samayso explicit reference tixraac cad inaad samayso to the context xaaladda oo si cad u sheegto xaaladda weerar ku saabsan yihiin but laakiin at least ugu yaraan the phraseology xalay qaabka ay odhaha weeruhu dhisan yihiin of the definitions ee qeexayaashu qaabka ereyada loo dhisay ee weeraha la isugu xidhay should indicate waa inay muujinayaan ugu yaraan kuwaas waa inay muujinayaan the context xaaladda waa inay muujinayaan halkaas waxay noogu eg cutubkii 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.